dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa kulan lagaga hadlayay aafada tahriibka u qabatay qaar kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer. Kulankani oo iska kaashanayeen dalada Soonyo iyo hay'adda Care ayaa lagu lafaguray aafada tahriibka iyo sidii bulshada qaybaheeda kala duwan looga wacyigelin lahaa hayaanka dhibta badan ee tahriibka. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay xogayaha gobolka Togdheer, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo madaxda Soonyo iyo Care. Maxamed Caydid Cali oo ku hadlayay afka dalada Soonyo iyo Nimco Xaaji Cali oo ku hadlaysay afka hay'adda Care ayaa ka warbixiyay kulankani. farxad bay noo tahay inaan maanta halkan ku kulanno hoolkan Dalwanaaje idinkoo ah dhalinyartii Burco. waxaynu iskugu nimi oo kulankeennani daaran yahay ma aha tababar aynu qabanayno amba tababar waxaynu ku tababarayo, laakiin waxaynu iskugu nimi inaynu ka wada hadallo. waa discussion waxa weeyaan kulankeenu waa dood inaynu ka doodno aynu ka wada hadallo aafadan qaran ee ah tahriibtu sida aynu ka warqabno waxa weeyaan musiibo ku habsatay dhalinyarteennii, hadday tahay dadkeennii dhalinyartii wax baranaysay amba jiilka. haddaba kulankeennan maanta aynu iskugu nimid waxa uu daaran yahay inaynu ka wada hadalno sidii bal tahriibta aynu yarayn lahayn iyo sidii aynu xal uga raadin lahayn waxyaabahan keenaya tahriibta. haddaba haddii tahriibta aynu ka hadlayno, tahriibta maxaa bilaris u ah? tiirarba wax waliba leeyihiin, bal tiirarka tahriibta keenaya inay dhalinyarteeni baxdo ayaan hawsha. marka dhalinyar la yiraahdo, dhalinyarta ugu badan ee hadda socotaa waxay u badan yihiin under age ka 15 jir 16 jir 17 jir. dadka ayna baahida nololeed wali saameynba ayaa ugu badan dadka tahriiba. marka horta waan ku faraxsanahay inaan soo hor istaago dhalinyarta quruxda badan leh. waxaan se hadafka trainingku ma aha inaan wax idin barno ama aan anagu waxuun idin sheegno, laakiin waxa weeyaan war maxaa sababaya dhalinyarteeni quruxda badneed u bixi wadankeena, kuwii mustaqbalka wadankeena u hayay inay maalin kasta iyago arkaya waxa dhimanaya haddana socdaan uun. isweydiintii waxay noqotay war balans waraysanno oo aan ogaano halkay sartu ka qudunsan tahay. ma shaqo la'aan baa jirta? ma problem kale ayna haysta? ma wadankeennaynu nacno inagaan muwaadin ba ahayno wadankan dad kale iskalo dadkii baan u banaynaynaa meesha calashaan si ay u soo galaan oo inaga ayaan lahayn meeshan. su-aasha markaa waxay tahay bal aan isweydiina dhalinyartii dowladdii si aan u ogaano war maxaa inaga maqan, maxaa wadankeena ka maqan. xildhibaan Nuux Maxamed Xuseen iyo xildhibaan Rashiid Faarax oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay dalkooda aaminaan isla markaana ay iska daayaan u heelanaanta dibaqyada shisheeye. adduun raadinayna dadnimo raadiya. waxaan kaloo idin sheegayaan horena u sheegay aqoontu hadday baxsato waa xanuun. shaygan la yaab dadka tahriibiga waa aqoonti. waa arday intuu wax bartay ama ardaynta wax baratay ay baxsanaysaa. xagad u baxsanaysaa waxa baratay dalkaagii joogo ka shaqeyso aamin wax u shaqee. inanka waxba bartay secondary buu ka baxay wuu baxsaday waxa leeyahay tahriib waa baxside yaad u baxsanaysaa yaad ka baxsanaysaa. marka waxaad ninkii loo soo baxsan lahaa inuu noqdo idinka noqdo. marka anagu de kulay dadkayga imika de weynay dalka aaminay intiina soo koraysa waxaan idinku waaneenaa inaa hankiinu noqdo inaa bedeshaan xukuumadda jirta. shaxaadka ceeb uma naqaano, laakiin inaynu kuuli noqono ama aynu roodhi waxaynu ku heli karaynaa war xadhiga Ilaahay aynu qabsanno. markaad xadhiga Ilaahay qofkan qabsan waa baadi. anigu waxaan oran lahaa aynu dib u noqono doodahan oo kalena aynu laasino. aad iyo aad baan cidii ka soo agaasintay doodana aan uga mahad celinayaa. waxyaabaha aynu ninkii aan shaqaysan jirin halkan Yurub hadduu tago miyuu shaqaystaa? dhalinyartii iyo madaxdii kulanka soo agaasintay ayaa isdhaafsaday aaraah iyo fikiro kala duwan oo lagaga hortagaya tahriibka. qaar kamid ah dhalinyaradii goobtaasi ka soo qayb gashay ayaa sugaan ku cabirtay aafada tahriibka. biljan ruuxii door biday inuu boqol ka soo qaato isagaan bartii gaadhin baa bahala boobaane bacaadkaa barhkood dila markay biyaba waayaane baktigooda beer qalata iyo baacsadaa hele haddii baaqi soo hadho nin baa meel ka buuxsadee bur markuu ku wada baabashee ba ay ka soo yeedho baaqu diracidiidii dhashuu bedel u siiyaaye waalidkood markuu helo warkaa uu basleeyaaye baahiyaysi buu kula kacaa beesha uu yahay bitirshiga intuu ururshay buu meel ugu tuuraaye iyagoo intaasoo bamaray bay ka baxayaane doon yaroo uliyo biraah baa lagu amuugaaye isbuguujiyaa lagu dhahaa burur sidiisiiye badhaadhaba ma helayaan mar qura oo iyagaa isbadaye boqoroo wallahayo bugsii buufis baa galay.
ugu dambeyntii xogayaha gobolka Togdheer ayaa talooyin badan u soo jeediyay dhalinyarada kuwaasi oo ku saabsan tahriibka iyo dhibaatadiisa. xorbaynu nahay wax kasta oo maanta u baahan waynu heli karnaa ganacsi waynu furan karnaa shaqaalaynu noqon karnaa waxa weeye wax walba way noo bannaan yihiin inaan waalidkana dhiibin baan leeyahay dhalinyaro inaan isdhiibin meeshaan waxba inagama xigaan oo kale jirkii tahriib ka soo noqday si kastaba ha ahaatee kulankan lagaga hadlayay aafada tahriibka oo ay soo qaban qaabisay dalada Soonyo oo kaashanaysa hay'adda Care ayaa isagoo ah barnaamij laga fulinayo gobolada Somaliland si bulshada loogu baraarujiyo aafada tahriibka. Shaafici Maxamed Ibrahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco.